Ururka Taladoon oo ka mid ah ururada bulshada ee ka jira magaalada Buhodle waxa uu saaka ka bilaabay magaalada Buhodle taakulaynta walaalaha ku dhibaataysan magaalada madaxda Beledwayne ee gobolka Hiiraan kuwaasi oo naf iyo maalba ku waayay fatahaadaha webigu sameeyay. Haddaba dhalinyarada oo ah kuwa markasta garab taagan walaalahooda Soomaaliyeed iyagoo sameystay halkudhig cajiib ah isla markaana khuseeya waqtigaas. Buhodle waa Beledwayne waa Buhodle. Bismillahirrahmanirrahiim. Halkan waxaa iskugu yimi haldoorada isxilqaamayaasha iyo samafalayaasha deegaanka oo ka soo jeeda magaalada Buhodle. Waxaan maanta saaka salaadii aan u soo jarmaadnay sidaan u caawin lahayn walaalaha ku dhibaataysan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledwayne. Run ahaantii waxa halka ka socda qof kasta oo Soomaaliyeed maanta uu og yahay. waxaan si gaar ah ugu damqanaa run ahaantii haddaan nahay dhalinyarada deegaanka magaalada Buhodle u damqanaa qof kasta oo Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dalka iyo dibadda. waxaanu jecelnahay inaad nala caawisaan walaalaha ku dhibaataysan gobolka Hiiraan haddaanu nahay dhalinyarada magaalada Buhodle. Wallaahi wa barakaatu Ilaahay baa mahad iska leh marka hore marka labaad waxaan rabnaa inaan walaalaheena gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledwayne aan caawimaad u fidino haddaan nahay dhalinyarada gobolka Cayn gaar ahaan magaalada Buhodle anagoo ah ururka dhalinyarada Taladoon waxaanu soo xilqaanay isuna taagnay inaan caawino walaalaheena ku dhibaataysan magaalada Beledwayne isla markaana aan garab buuxa siino waxaan rajaynayaa dadka reer Buhodle firfircoon isla markaana ka qayb qaata arrimaha noocan oo kale ah inay si habsami leh ay nagala qayb qaataan iskuulana kala garab taagaan inay nagala qayb qaataan caawinta walaalaheena dhibaataysan aan u fidinayno. halkan waxa isugu yimid dhalinyarada gobolka Cayn gaar ahaan Buhodle waxaan saaka isku xilqaanay inaanu caawino walaalaheena dhibaataysan biyuhu qaateen ee waayay meel ay seexdaan meel ay harsadaan iyo waxay cunaan. waxaanu booqanay goobo kala duwan goobaha waxbarashada iskuuladii waxaanu booqanay aanu ku rajaynahay inaanu tagno qaybaha kale ee bulshada u tagno dadka meelaha iskugu yimaadaan aan tagno waxaanu rajaynaynaa inaad nagala qayb qaadataan oo caawisaan walaalaheena dhibaataysan. halkan waxaanu nahay anagu dhalinyarada magaalada Buhodle oo ku midoobay ururka Taladoon waxaanu gargaar walaaltinimo ah aanu isku daynaa inaan u fidino walaalaheena Beledwayne oo fatahaaduhu ay haleeleen iyo deegaanada hoostaga waxaan u taaganahay inaan caawino. halkan waxa isugu yimiday dhalinyarada ururka Taladoon anagoo ku hadlayna afka dhalinyarada gobolka Cayn waxaan u taaganahay mar walba inaan caawino walaalaha ku dhibaataysan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledwayne mar walbana waxaan u taaganahay inaan caawino insha Allah dadweynaha daawanayana waxaan leenahay ka soo qayb qaata caawimaada lambarkuna waa halka ku yaala waa 4206251 weeyaan caawi walaalaha Beledwayne caawi walaalahaaga dhibaataysan ee gobolka Hiiraan. Ururka Taladoon ayaa ah urur ka shaqeeya arrimaha khayriga iyo taakulaynta dadka tabaalaysan. Ibrahim Abdiqaadir Jabaan, News TV, Buhodle.